san ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadanayno mashaariicaha ugu waaweyn deegaanka Soomaalida ee lagu guuleystay in muddo gaaban gudahood lagu soo gabagabeeyo waxaana ka mid ah barnaamijkaasi aan ku soo qaadanayno cusbitaalka guud ee degmada Gaashaamo oo ka mid ah mashaariicaha ugu waaweyn ee xukuumadda deegaanka Soomaalidu isbeddelka kadib ay ka dhaqangelisay deegaanka Soomaalida cusbitaalka Gaashaamo baahi badan oo loo qabay dhinaca adeegga caafimaadka ayuu wax weyn ka taray gaar ahaan cusbitaalku waxa uu faa'iido weyn u leeyahay shacabka ku dhaqan degmada Gaashaamo iyo degmooyinka kale ee ku hareeraysan ee ka soo jeeda gobolada kale mashruucani waxa uu yahay mashruuc muddo gaaban gudaheed adeeg bixintiisii ay si rasmi ah u bilaabantay imika ka horna aan xilligii loogu talagalay iyo xilligii loo qorsheeyay aan lagu soo gabagabaynin isbeddelka kadib balse markiiba qorshihii lagu guuleystay oo adeegii si rasmi ah uu bilaabay cusbitaalka guud ee Gaashaamo mashaariicaha ka socda iyo kuwa ka dhamaaday intii 3 sano u dambeeyay isbeddelku jiray waxa jira 28 sano oo hore oo EBRDF ama TPLF ay wadanka hogaaminaysay degmadan mashaariicaha ka furay waxay ahaayeen 108 mashruuc halka 3 sano u dambeeyay ay ka fureen mashaariic 5 mashruuc oo 5 mashruuc ka mid ah lagu fuliyay ka qaybgalka ama qurba joogta shacabka degmada mashaariicahaas shacabka ay dhisteen oo u badan dugsiyo sare sida dugsiga sare ee Cadaada dugsiga sare ee Maanyare dugsi sare oo Garanugle qabliga Garanugle sidoo kale dugsiga sare ee Gorgor iyo dugsiyo kale oo la mid ah ka qaybgalka bulshada lagu dhisay sidoo kale dhanka xukuumadda فرق قول حيوان دريمي كرنا استدي لا تنسون استدي مشروع لفريق يلا بس أنا أما بلا لا بد كوني استدي حياته ما مشاريع دي يقول ما يكون شيرين أو لفريق أفرت أن يشان مشروع لأنك بيهو كلا لح عيال أيال قضي أو صدق كم إذا قضاء الكود الصعدة صدقنا إذا ما عادين سوي أنا لفرين أنتي يسبدلك سو كلا حق عافماتك هسبتال كوينة كاشامور لسنا لكن أنا لفرين اسمه وقتي هراها فريتان كيسة يك شقيسين تيسو حيل لغدان إن يمكن مدة دور بلغة بشقينا يا حقيقتنا بالشدة بيقول ديرسات هاي أديك أو بحنا يو باهية بدن أو قول فوق لو دوني شري أيو كفرجري سيده هو يد الآن أما أمور ليس خلا نوفر فرجرين شرنا ورده ماشي يقول دودي وحنا قطعين هالكن لو كفرجري أو haddaba shacabka ka faa'iideysanaya adeegga caafimaadka ee ay ka heleen cusbitaalka guud ee degmada Gaashaamo ayaa faa'iidada iyo manaafacadyada ay ka heleen ee kala duwan ka hadlaya waxaan sidii gabadh aan umushada xanuunsatay oo qaarka dambe ilmiga kaga raftaa aad xanuunsanaysa marka shalay baan keenay isla saacadii aan keenay runtii si fiican baa maareeyaan la kulanay dhaqaatiirta dhammaan la kulanay si fiican bay ugu shaqeeyeen ilaa xalay ilaa hadda saacadan joogo si fiican baa lagu shaqeynaya caafimaadkeeda waa fiican may kacaynin awal هذا القطيرته ويسوتمي اللي شغيني ويكعيين ويتاجين وصفي عم بيودين ما شاء الله دوودنا صفي عم بيوسيين كمبيوترتين والله صاري مفتوح ما قبل تباليجي صفي عم بيو على قعمته وهي سمال لين بنقول والله تبعمل قصة سمان قاعدين يا مارجيسة تكتيكانو دون لا يا مركز سمان قاعدين بقول كي بس عشان بسكر دي عاديات بقول بس عشان بسكر دي واحد يبغى سوق سعود 10 كيلومتر كاين تنسى سعود هذا السلام نقول كيم إمكاننا هذا الدنيا والله قولي يقول يقولوا بنقوني هذا الدنيا قاعد هنتي بدن بنستعملها أنت هذا نكون عافمات كنا وقف عن سكرني هنتي بدن بابورا كريو يعني قرش بدن يقبحها يعني سدال بدن صدعال تراج دال بدن واحد بدن بدن ما يقول عليها الحمد لله بدن بسكري بقولك بس والله ما شاء الله أنا ودي إلى شري بنتشوقي إلى شري أنت بتشوقي ما شاء الله سفي عم بان دقاتور تو أي نوش قيسي الحمد لله ماريو أنا كلنا أول أنا كلنا كنت اسمه أفكارني إنك دكتور كاي دكتور كاي أنا كلنا أنا أفكار ماريو أرمادي كيف هاللين مركب ما نفهمين أنا واسمان فاهمين سيف عن مركب ماريو إنه يمي أفسو عن وتشعي أرنتينا أما قارن سيف عن قفكي وفانسية قفكي وحبان جاي أنا جينا نقترشمي جينا نقترشمي وحي هؤلاء كده حيسين يجوا يكون هاللين مركب ويسفهمين مركزي أيوب بالله من بنا روش. شاتوا الحنسني آد بنحمد اسنا الحمد لله رب العالمين صحة مركز دوذي شقالي وشقي الحمد لله رب العالمين نظر آد بالمظن المانت وبين دماش دار مقالي خرنا قف حنسني وأكو تعدي
marka dhakhtarkan alxamdulilah rabbil caalamiin inta nala sameeyay walahi waan ladan aad baan hadda anagoo dad tabcaanay oo gaarigna sii dilo dad barbara baan tagayn laakiin alxamdulilah waa gurigeyga waan wareegayna inta qolqolka hadda malxada la yiraahdaa waxaan ka imid centerka booda dheere haddii aan 50 kilomitir haddii aynan jirin oo aan dhakhtarkan naloo samayna wixii aan la aadnaa waxay ahaan lahayd ama war dheer ama meel ka shishaysa dee ilaahayigii na rabayna waa kii dhakhtarkan noo sameeyey iminka 24 saac waxaan keenaa dadka xanuunsan gorgor booda dheere cali buraale xiirane meygaag jiifa axmed gaab cilmi dalamiye ballimidgaan marba mid baan ka soo qaadaa maalinna ma istaago ilaahay ma haddii dadku markaba dhakhtarka markii la keeno si la yaqaan oo cajiib ah wax loogu qabtaa mid waliba isagoo caafimaad qaba markuu ama laba habeen u hoydaan dib ugu celiyaa har iyo hameenba waa keenaa dee waa ilaahay ma haddii waxaanu ilaahay ugu shukriyeynaa ilaahaygi dhakhtarkan noo sameeyey iyo ciddii noo qabanqaamisayba marka caafimaadka waxqabashadooduna aad iyo aad bay u wacan yihiin waa sida sidoo kale xirfadlayaasha caafimaadka ee ka howlgala cusbitaalka guud ee gaashaamo oo iyaguna noogu xog warramaya geedi socodka adeega caafimaadka ee ka jira adeegyada noo yimaada dadka bukaanka noo yimaada dee waxay ka yimaadaan gaashaamo nawaaxigeeda deegaankeeda tuulooyinka oo dhan meeshay doontaa ahaato bukaanka markaa noo yimaada xagga baa la keenaa shaqaalihii way joogaan adeega bixinayay dhakhaatiirta iyaguna way ku qoran yihiin markaa waa loo adeegaa waa lasoo dhaweeyaa waa lasoo dejiyaa wixii ay u baahan yihiin adeega caafimaada waanu u bixinaa dhakhaatiirtuna way u adeegaan way ku qoran yihiin habeen iyo maalinba shaqaalihii neersiguna wuxuu ku soo kordhiyay adeegyo badan baahiyo badan oo imika matalan qof emergency la keenay hadda ka hor gaashaamo qofka marka la keeno dee meelaha saxarda baahiyaha cusbitaalka hadda uu bixinayo may lahaan jirin hadda ka hor marka waxaan u diri jirnay qofkan oo loo refer gareyn jiray meelaha ay ugu sokayso wardheer iyo dhagax buur iyo jijiga iyadoo rafaad badan lala marayo hadda laakiin alxamdulillaah weli intii cusbitaalkani furnaa wax refer la yidhi oo la yidhi waxba looma qaban karayo sidii hadda ka hor dhici jirtay ma jirto marka baahiyo badan oo degmadu ay aad ugu baahnayd bay hadda ay ka heleen oo hadda bilow u ah inuu dee sii waaro oo sii jiran aan ilaahay ka rajaynayno dee bukaanada horta way isku jiraanoo xanuun kasta way leeyihiin inkasta oo hooyooyinka oo kale iminka marka laga hadlayo ay u badan tahay hooyooyin dhiig yaraan ah oo dhiig la-aan ah qaar maxaan ku dhahday tuulooyinka intay kusoo umulaan xagaa kusoo dhiig baxo oo la keeno xaggan dhiigga loogu shubo qaar maxaan ku dhahday guryaha inta in badan dadkeena Soomaalida ahi inta badan qofku intuu buke u dhow yahay lama keeno laakiin waqtiga uu aadka u xanuustay bukaanku uu ku siyaado ayay keenaan marka inta badan ayagoo jira inay guryaha kusoo fooshaan oo in badan soo fooshaan bay keenaan inkastoo weli qaybta qaliinka hadda naloo furino inay wiigan gudihiisa ay noo furanto aan rajeynayno maxaan ku dhahday dhiig shubistii oo kale waa loo sameynayaa hooyadii kale xanuunka kale lahayd waa loo daweynayaa marka way kala duwan yihiin xanuunadu marka xanuun kasta oo yimaada waa la daweyn والله ما شاء الله سفي عن ولا هويين وحنا قد وينا دي مركي ما دون هوية فورنا ساكوي من كرتا أو لا بركية وحكلو كوي من سهوية أنيمي قو براديكا هويين كبراديكا وحنا لغو تلسكريسي دم كوي دنا كلاديكي وكيدو يلا يكودت كلاقة شبه داركتريا aad wala isu bedeshay way markii arkaan haween u shaqeynay hooyinka markii hore rag aad uga cabsan jiray markii dumarka u soo galaan laakiin markii hooyadii wax laga yaabay xanuunkeedii iyo baahideeda inay ku wada sheegato adoo dumar markaad soo gasho marka kulli xaggan hospitaalka kuma badna ragku aad bay uga fiican sida lagu follow up gareeyaan waana ku wacyigelin hooyinka marka way yimaadaan hooyinku si fiican bay la soo xidhiidhaan inta hospitaalku furnaa shaqo badan baa loo qabtay hooyinka ay aad siiga ugu xiran yihiin iyagoo ka imanaya xataa qabiilooyinka ama kabaabiga gaashaamo dhan
hooyooyinka waxaan kula talin lahaa hooyo kastoo caafimaadkeeda inay la soo xidho waayo gurigooda bay imika ka heleen hooyo hooygeeda ka heshay weeyaan adeegii ay meel fog doonanaysay marka waxaan kula talin karaa hooyo kastoo u baahan inay dhakhtarka soo aado una timaada waxaanan waraysi ballaadhan la yeelanay oo dhinacyo badan taabanaya maareeyaha cusbitaalka guud ee degmada Gaashaamo oo nooga warramaya guud ahaanba adeeg bixinta caafimaadka ee cusbitaalka Gaashaamo. Cusbitaalku wuxuu shaqaynayaa oo adeeg bixinta uu wada muddo bil ah muddada bilka uu shaqaynayay cusbitaalku wuxuu adeeg bixinayay dhammaan waaxyaha ay cusbitaalku ka kooban yahay si guud cusbitaalka Gaashaamo wuxuu adeegaa degmada Gaashaamo degmada Daroor degmada Marsin Danood iyo Dig waxyaabaha meelaha kale looga soo refer gareeyo ee ugu badan ay dadku xaggan soo doontaan waxa weeyaan qaybta dhiigga oo hadda dadka dhiigga lagu shubo oo ay waaxdaas hadda diyaarsan tahay qaybta qalliinka oo hadda iyaduna functional noqotay oo ay dadka halkan loo soo refer gareyn doono sida oo kale qaybta raajatada ama sawirka oo iyaduna rajeynayno toddobaadyada soo socda aan meelahoodu wada diyaarinay iyaduna ay noo imanayso dadka muddada bisha ah cusbitaalku shaqaynayo waxa way waaxyaha cusbitaalku u adeegeen dad 3650 qof ah oo kala ah meelaha emergency-ga waaxda MCH-ka OPD-yada inpatient department-ga waaxyahaas oo dhan dadka guud ay u adeegeen waa inta cusbitaalka Gaashaamo muddadii uu jiray wuxuu kaafiyay ama uu daboolay baahidii ay qabeen dadka deegaamadan ku nool ee degmooyinkan ku nool oo adeega ay u doonan jireen meelo aad u durugsan iyadoo dhulkana inta badan aanu gaadiid jirin adeega ambulance-na uu ku yaraa deetana ay dhici jirtay in muddo dheer ay ku gaaraan jigjiga oo kale hooyooyinka uurleyda ay dhib badan kala kulmi jireen wadada rafka ah iyo jidka dheer oo 420 kilomitir ah ee ay mari jireen marka adeeg bixinta cusbitaalka waa sida waaxyuhuna dhammaan saas bay hadda u shaqeeyaan si guud waxa ka shaqeeya shaqaale isugu jira shaqaale caafimaad oo xirfadlayaal caafimaad ah iyo dhakhaatiirtii oo dhakhtar oo takhasus ah oo kii dumarka iyo aqalinkii iyo waxa kale oo jooga 5 dhakhaatiir oo dhakhaatiir guud runtii waxay aad ugu dhid qabeen dhinac siday u gaari lahaayeen meeshii ay adeega u doonanayeen meeshii aad adeega u doonanayso si aad u gaadho waxaad u baahan tahay gaadiid ku fudaydiya kolka way adkaan jirtay dadku inta ugu badan meelaha ka yimaadaan dad baadiyaha ku nool weeyaan kolka lug bay ku gaadhaan meelaha ugu badan ay gaadiid ka heli karaan markaas haddana gaadiidku meel kale ka sii qaadi jiray laakiin hadda imika inta nagu hareeraysan oo kale cusbitaalku ay soo gaari karaan kuwa kale ee ka durugsana iyaguna meel uga dhow bay noqotay kolka loo barbar dhigo meelihii markii hore ay tagi jireen oo ay soo gaari jireen dabcan way jirtay taas imika waxa jira dadka wacyigeedii oo koray wax badan way aqbali karaan waxa waaxyaha laakiin ka shaqeeya anagu aan xoog saarnay gaar ahaan qaybta MCH-ka hooyada iyo dhallaanka dumar midwiferys ah baa ka shaqeeya sida oo kale waxa la shaqeeya dhakhtarka guud ee qalliinka oo dhakhtar takhasus ah oo geynaan obs specialist ah marka kolkay arkaan gabadh uu adeegaysa kalsoonidoodu aad bay u koraysaa oo aad bay ugu kalsoonaanayaan bulsho ahaanna sida ay bulshadeenu nooshay waxa weeyaan inay kalsooni badan ku qabaan ay dumarka ku qabaan marka dhakhtarkeena wuxuu ka caawinayaa wixii iyaga ka hor yimaada ee ka adkaada iyo haddii ay qofka hooyada uurleydihii qalliin u baahataba ayuu ka caawinayaa laakiin si guud waxa uu adeega oo ku qoran qaybta 15 midwifery ah oo dumar oo u adeega kolka intii ay dumarkaasi hadda yimaadeen ee qaybtaasi ay gabadhaha midwiferyska adeegayeen waxay isbedelay adeegii qaybta ay u soo doonanayeen kolka kalsooni badan baa soo galaysa oo iyo ku dhiirasho badan meel ay waaxdaas markay gabadh ka shaqeynayso aad bay ugu soo dhiiranayaan kolka dhakhtar guud dhakhtar qalliin baa jooga oo dhakhtarka gynaan obska ah oo la shaqeeya laakiin sida caadiga ah waxa uu shaqeeya dumarka midwiferyga ah kiisaska iyagu halka ku qaban karaan cusbitaalka waxa ka shaqeeya dhakhaatiir ahaan markaynu niraahno 5 dhakhtar oo guud iyo labada hadda takhasuska ah qalliinka iyo xanuunada dumarka ah waxa kale oo noo jooga anesthesia oo sooxiye waa qaybta qalliinka ka wada shaqeynayaan kolka teamkaas iyagu
waxaa jira shaqaale xirfadlayaal caafimaad oo iskugu jira nursing iyo midwifery iyo laboratory hadda ahaan anagoo weliba sii kordhin doona dhowaan waxaa iminka ku shaqeeya 64 qof weeyaan xirfadlayaasha caafimaadku laakiin shaqaale kale oo supportive oo iyaga la shaqeeyo ayaa jira laakiin inta xirfadlayaal ee caafimaadka cusbitaalka shaqeeya waa inta qaybtii waaxdii farmasiga jirta iyaduna oo dawooyinka bixisa maxay oo dawooyinkana sida guud cusbitaalada dawladda oo dhan waxay ka qaataan ibsa hadba sidii looga helo wixii kale ee laga waayana waxa stock out ahna waa la soo wax dibadda laga soo qaataa marka dawooyinkana sidaas baa loo helaa waxyuha kale cusbitaalkuna saas buu shaqeeyaa waxaan intaan nagu dhamaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku soo qaadanay cusbitaalka guud ee degmada Gaashaamo faa'iidada uu ka horseeday degmadaasi oo ka mid ah mashaariicaha ugu waaweyn ee isbeddelka kadib laga dhaqangeliyay deegaanka Soomaalida intaan barnaamij kale oo la mid ah dib hawada u kulmi doono ka hor waa Maxamed Maxamuud oo idin leh nabad